ninkayga waxaan ku heshiinay inuusan weligii gabadh kale guursan karin waxaana aan u sameeyay inaan ilkaha u soo geliyo ganacsiga waa la sameeyay kadib gabadh buu guursaday xoolahaygina kala noqon karaa ama ilkahaygina kala bixi karaa ilkaha sida loo kala baxay ma garanayo laakiin horta su-aasha qaybta koobaad oo ah asalka waxa waaye shardiga ma noqon karaa gabadha inay ninka u shardiso inuusan la guursanin shardigaasi waa shardi baatila diinihi waa shardi baatila sababtoo ah kullu shardin laysa fi kitaab illaahi fa huwa baatil wa shardullaahi shardiga ilaahay baa xaq mudan in la raaco hadduu xataa dhaho shardigu uu qofku dhaho shardigaas waan kaa qaaday hadhow wuxuu noqonayaa shardi laqwi ah oo uu hadhow uu burin karaa marka shuruudda aad dhigaysa waa inay noqoto shuruud nafci kaaga soo noqonayo ood ogtahay diintuna inay qabto intaas waay ninka ma ka qaadan kartaa wax aad siisay haddaad qofka wax u hibaysay ama aad ninka horta xoolaha aad ninkaaga siiso waa sadaqo taa ogaada nabiguna wuxuu sal allah alay salam alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadiisa ku noqda wuxuu la mid yahay ey mantagay oo mantagiisi dib u cunay oo kale marka risqiga ilaahina waa badan yahay mustaqbalkuna waa weyn yahay xataa ninka haddaad iska furayso oo aada ku ganacsan naakale inuu kula guursado oo naakale haddaa guursatay fur aad dhahaysid ha isdagaalina inaga mushkiladan haysta soomaalida waxaa waaye markay kala tegayaan baa dagaalkii adduunka laysoo cabaysanaya mid kasta wuxuu rabaa mid kale dhulka inuu la gooyo mid kale wuxuu isleeyahay ka kala baabi'i ogow baabi'inta adaa ku baaba'aya caruurta adaa ku baaba'aysa haddaad adoo ilaahay dartii aad dhahday walaalo wixii aan ku siiyey ilaahay hortaada khayr allaha dhigo anigana khayr hortayda allaha dhigo waxay noqonaysaa waa in yatafaraqa yuqri llaahu kula min sacati ilaahay baa kuwa qani yeelay ilahay baa qani ah marka dagaalka ah qofka risqigiisa iyo dagaalka adduunka lagu qaadayo soomaalida familada mushkilada haysato ugu weyn anigu aan arkay waxaa waaye labada qofoo markay kala tagaan isdilaya haddaydan isdilin walaalo muslim a noqda ha isdhihin qofkani amuu kaa raystaa wax yar baan kusoo khatimayaa waxay dhahaan culimmadu haddaad rabtid qofka inaad ka raysid haddaad rabtid xataa marka kaltaa naais baa loo noqdaa hadhow markuu arka naag kasta wuxuu leeyahay talo hiblaayo kale ma noqonaysaa laakiin haddaad dagaalka adduunka ku qaad wuxuu leeyahay ama